madaxweyne Cirro ayaa qalinka ku duugi doona heshiiskii is-afgarad ee Abiy Ahmed iyo madaxweyne Biixi iyadoo la filayo wadanka ugu horeysa ee uu ka degaano inuu noqon doono Itoobiya. shirqoolkii ugu weynaa ee diblomaasiyadeed ayaa Abiy Ahmed u dhigay madaxweynaha Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo soo afjaray filla Soomaaliya, iyo Kenya iyo Itoobiya oo go'aan halis qaatay. kacdoonkii aqoonsiga Somaliland ee wadanka Mareykanka oo guul qarka u saaran, iyo wafdi heerkiisu sareeyo oo Trump u soo dirayo magaalada Hargeysa. warbixinteenan ayaynu ku falaqaynaynaa tallaabooyin lama filaan ah oo ku soo wajahan geeska iyo diblomaasiyadda oo dhinaca kale iska rogtay. dhawaan bay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud uu isu dhiibay wadanka Itoobiya, isagoo oo qoslayana si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Addis Ababa ee xarunta wadankaasi. waxa uu saxeexay dhammaan badamacyadii Abiy Ahmed iyadoo uu ku raali gelinayo, sidoo kalena doonayay dana isaga u gaar ah iyo in laga takhaluso heshiiskii is-afgarad ee ay wada galeen Somaliland iyo wadanka Itoobiya. guriyo noqoshadii Xasan Sheekh Maxamuud iyo safarkaasi oo uu arkayay inuu ka gaaray guulo waaweyn uu ku soo afjaray maamul goboleedyadii iyo waliba Somaliland oo heshiiskii is-afgarad ee jahwareerka ku dhaliyay muddada sanadka ah uu ka salgaaday ayaa dhinaca kale iskaga rogay, iyadoo tani ay noqotay shirqoolkii ugu weynaa ee abid ku dhaca madaxweyne Soomaaliyeed kaasi oo loo dhigay Xasan Sheekh Maxamuud. ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Abiy Ahmed Cali oo cayaarayay diblomaasiyadda aamusan sidoo kalena wejiga uu tusayay Xasan Sheekh Maxamuud aanu ahayn kii rasmiga ah, ayaa ka saxeexday dhammaan badamiciisii iyo rabitaankiisii, iyadoo sawirrada la galay Xasan Sheekh Maxamuud oo si weyn u faraxsanna laga soo ambabixiyay airportka diyaaraduhu ka haadaan ee Booli. laba arrimood oo uu codsaday maxaa ka suurta galay haddaba. ta koobaad ayaa ahayd in heshiiska Somaliland laga baxo oo loo dhigo safaaradeeda hoos, sidoo kalena cilaaqaadka ay u jarto dawladda Itoobiya Somaliland, iyo talabaad oo ahayd in dhammaanba maamul goboleedyada Soomaaliya cunaqabatayn la saaro oo siyaasadda arrimaha gudaha ee wadanka Soomaaliya ay dawladda Itoobiya faraha kala baxdo. labadan qodob ayaanay ahaayeen wixii sharaf iyo qab ay lahayd filla Soomaaliya, kuwa ay ku bedelatay dawladda Itoobiyana ay shirqoolka weyn ugu dhigtay ee aanay waxba ka fulinin in awoodda dawladnimada loo adeegsado magaalo iyo dad shacab ah ama se gobol oo hogaamiyaha markaasi jooga filla Soomaaliya uu cunaqabatayn iyo xayiraado saaro ayaa ah mid ay Soomaalidu wax iskaga ogeyd 33 sanadood ee ugu dambeysayna aan suurtagal ahayn, balse madaxdan dambe ee Soomaaliya teendhada hoosteeda lagu dooranayo ayaa keenay cagajuglayn iyo nidaamka yar ee dawladnimada ee gacantooda ku jira in ay ku cunaqabatayaan magaalooyinka qaarkood, iyadoo Somaliland marar badan toddobaadadii ugu dambeeyay taasi oo ay filla Soomaaliya saartay cunaqabatayn dhinaca duulimaadyada. dhammaanbana madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa uga adkaaday Xasan Sheekh Maxamuud dagaalkii gacanka hadalka ahaa iyo kii siyaasadda oo ugu dambeyn ciidamadii loogu talagalay inay qabsadaan ku soo afjaray muddo saacad yar gudahooda. saacadihii la soo dhaafayna madaxweyne Axmed Madoobe ayaa soo afjaray xanibaadii dhinaca duulimaadyada iyo hawada ka saarnay kadib markii uu safray magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya, inay ku soo hoobatay magaalada Kismaayo diyaarad dhigshara qusiin weyday adeega ay diyaaradaha kala hadlaan asi oo ku rakiban aadan caadi international. diyaaradii labaadna waxa u dirtay Itoobiya oo iyaduna halkaasi ayay tagtay, iyadoo dhigshara qusiin weyday raadaalka iyo amarada ka soo baxaya filla Soomaaliya. tanina waxa ay ka dhigan tahay inuu dhalanteed ahaa heshiiskii iyo qosolkii, balse Xasan Sheekh Maxamuud uu saxeexay damicii ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Abiy Ahmed. tanina ay ahayd shirqoolkii ugu weynaa oo aan loo fulin filla Soomaaliya doonisteedii, balse ay saxeexday damacyadii Itoobiya ay ka lahayd gudaha Soomaaliya oo ay dawlad ka madax bannaan u aragto Somaliland. dhacdooyinkan iska daba imanaya ayaa ilaa iyo haatan ay Soomaaliya la aamusan tahay yaab iyo anfariirka ku dhacay, iyo tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee ay qaaday oo ay guul ka filaysay dhinaca ay iska rogeen. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaana u muuqday inuu u baxaa aanay jirin. warbaahinta xuquuqaal ayaa ogaatay dawladda Itoobiya inay wafdiyo u kala dirtay wadamada Afrika, kuwaasi oo ay ku jirto Kenya oo ay si gaar ah uga xulatay maadaama oo ay Soomaaliya deris la tahay wadamada Afrika. waxa ay la diblomaasiyadeed ay sheegayaan fariintani inay ahayd sidii ay si wada jir ugu soo afjari lahaayeen
Soomaalida la isku sii hayn lahaa inuu soo dhamaaday oo aan la joogin. Isbeddelkani ayaa muujinaya madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi inuu ka degi doono magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya kaasi oo noqon doona intii la doortay. Kani ayaa horseedaya aqoonsi caalami ah iyo kala bedelashada heshiiskii is-afgarad ee Somaliland iyo Itoobiya kaasi oo qaybtiisii hore qalinka ku duugay Muuse Biixi Cabdi. Dawladda Itoobiya ayaa dhinaca Soomaaliya dana badan kale halka ay dhinaca Somaliland ka leedahay dana la mid ah kuwaasi iyadoo doonaysa heshiiskan is-afgarad ee ay ku soo gelayso gacanka cadmeed in aanu marnaba noqon mid madhalaysa ama se dhul dhaca. Kacdoonka aqoonsiga Somaliland ayaana ah mid wada jaan qaadaya oo haatan la gaadhay waqtigiisii shacabka Somaliland ay u soo samreeyeen muddo dheer iyadoo loo soo dhabar adeegay waxa soo dhirindhiriyay doorashadii dhawaan dhacday oo ay si weyn caalamku u mahadiyeen uguna arkayeen inay tahay mid aan qeyrkeed qabsan karin Somaliland oo ay kaga fadilan tahay wadamada Geeska Afrika. dhawaan la doortay oo ballan qaaday boqolka casho ee ugu horeysa inuu Somaliland aqoonsan doono ayaa waxa uu soo magacaabay 3 xubnood oo Somaliland xiibo dhow la ah kuwaasi oo Afrika xilal waaweyn ka qabanaya. ila wareediyo xogogaal ay heshay ayaana sheegaya wafdi heerkiisu sareeyo oo markii ugu horeysay waddanka Mareykanka ka socda inay Hargeysa iman doonaan toddobaadada fooda inugu soo haya kuwaasi oo si ambaqaadka kacdoonka kan iyo sidii guul looga gaari lahaa ay ka wada hadli doonaan dawladda Somaliland. siyaasadda Geeska Afrika iyo guud ahaanba diblomaasiyadda caalam ayaa ah mid jahaynaysa oo wajiyo cusub ay ka soo baxeen kuwaasi oo dhammaantood isugu marxaati furaya inay Somaliland gaarayso hadafkeedii ay muddo dheer u soo samreysay. albaabka Soomaaliyana uu ka xidhmi doono